Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu dhammaan asxaabta ku sugan channelka Asma Cooking Care channelka cunto karinta iyo nadaafada kusoo dhawaada maalin walba waxayna xiiso geliya waxaad ku faraxdaan insha Allah dhammaantiin waxaan idinka codsanayaa intii hore noola joogtay inay channelka noo subscribe gareeyaan like noo saaraan share comment caafimaad qaba nala wadaagaan inta nagu cusubna waxaan ka codsanaynaa inay channelka subscribe noo saaraan naguna dhiirigeliyaan like-tan waxay naga caawinaysaa fiidiyowga inuu gaaro asxaab kale oo adinka inka badan marka aad iyo aad baa mahadsantihiin maanta waxaynoo hayaa muufo laga sameynayo bur cad ama daqiiq kaliya sidaad u taqaanid hadba daqiiq kaliya halkan waxaan kusoo diyaarsanay garaafe waxaanu ku shubnay ama caaga canjeelada kale waxaanu ku shubnay 4 koob oo bur ah adi inta aad rabtid adiga ayaa sameysan kara laakiin qiyaas ahaan anigu inta aan rabo inaan la wadaago waa sida tan 4 koob oo bur ayaan ku shubay koobkuna waa koobka shaaha lagu cabo bakeeri in la dhahaa bakeeri baad u garanaysaa waan filayaa dee af kale oo ku dhaho saas ma aqaane marka kabeeriga afartiis ayaan ku soo shubay waxaan ku daray faxiiso hal qaado faxiiso ah ama qamiiriso liibito si aad aragtid u qaado ama u taqaanid ilaahay afka Soomaaliga wuu badiyay Allah musta'aan waxaan ku daray 2 koob oo caano ah koob halfkiis oo biyo intaas ku filan aan ku qasay marka waan soo xashay waan adigu muddo 30 daqiiqo way daboolnayd halkan waxaan ku haystaa noogu jarjaran barbarooni iyo basasha cad iyo 3 mil oo toon aan soo xoqay waxaan rajeynayaa inaad wax ka faa'iidi doontaan waxaan ku dhex dareynaa basashan muufadii waata aad aragtaan say noogu soo baxday noogu soo qamirtay sida quruxda badan maasha Allah muddo 30 daqiiqo ayaan sugaynay waxaan ku darsanaynaa basasheena barbaroonigeena iyo toonteena insha Allah waxaan rajeynayaa dhammaantiin inaad sameysan doontaan muufadan waxay ka caawinaysaa waqtiga afurka ama Ramadaanka insha Allah idan ilaahay nabad ha nagu wada gaarsiiyo inaad sameysatid meesha aan canjeela ama bariis ama baasta anaga Soomaali hadaan inta badan canjeela maraq waxaan afur sameysana marka meesha aad gelinay canjeelo ama bariis ama baasta inaan muufadan ka sameysato ayadoo badar leh oo healthy ah maasha Allah saa u jeedaan ayaan isku dhex galiyay sidii hore way ka dantay oo is dhex galaysaa way yaraanaysaa dee sidii awal ay ahayd ma noqonayso ilaa liibita awal way soo kacaysay marka insha Allah dee Ramadaanti waa soo dhow nabad Allah nagu gaarsiiyo caafimaad qab dhamaantayo sida ay u jeedaan ayaan isku dhex labayaa waan labayaa sida uu basasha iyo barbarooniga u kala firdhaan ay burka dhan u dhex galaan marka dee nala daawada in leeso sameynayna insha Allah haddana waxaan soo saarnaa bir daawadii canjeelada dabka ma u baahna muufadan inaad bir daawada gambisid dhuxul ma ku sameynayay oo ujeedaan gaas aan ku sameynaya waa easy very easy waaye wallahi hadda isku daydid dee waa kana wax dufan oo saaid u badan ama lagu isticmaalay saliid yar oo sunflower cuntada lagu karso yar adis saliid alla saliida haysatid ku sameysan kartaa cunto lagu karsado hadda saliid la'aan ku sameynaysaa marka ana maanta saliidan ku sameystay maadaama ay qudaar ku dhex jirto xabadii horti saasay noogu soo dhamaatay waa u jeedeen haddana xabadii labaad ayaa dabka noo saaran markay qalasho dhinacan sare indha ay sameynaysaa markay qalasho ka bacdi ayaan waxaan u rogaynaa dhinaca kale ma u baahna inaad birta dhan rogtid muufada ayaa la rogayaa muufada haddaa rogtidna dee sidaan ay ku soo baxaysaa waa u jeedaan marka waxaan rajeynayaa insha Allah inaad farxiya inka farxiya mar walba iyo video inka farxiya inay soo gudbin doono insha Allah ma rajeynayaa Ramadaantana caafimaad qab dhamaanteena ilaahay ha nagu wada gaarsiiyo ilaahay Ramadaantana nabad ha nagu wada gaarsiiyo nabad ha noogu dhameeyo insha Allah kuwii Soomaa salaadana ilaahay ha naga yeelo aad iyo aad baa mahadsantihiin inta hadda uga soo laabto xabadii saddexaad waa tana xogaa yar madow iga yeelatay don't worry marka dee waa muufo maasha Allah wallahi qofkii cuno baa ka sheekeyn kara ma fahanteen
dadka dumarka hore u samaystaan aad ba mahadsantihiin oo dee waaba taqaanaan idinii sheegi mayso intaan hore u samaysana please isku daya samaysta tijaabiya cuna nala cuna aan isla cuno waxaan jeclahay wax kasta anigu aan fikrad u leeyahay ama aan anigu in kaga aqoon sareeyo inaan idin soo gudbiyo in la soo wadaago adinkuna sidoo kale aad jeceshiin marka muhiim maaha inaad dad la wadaagtid ee muhiim waxa ah wax kasta inaad dad la wadaagto muhiim maaha waxaa muhiim ah waxa aad soo gudbinaysid inay yihiin wax laga faa'iidayo marka muhiimadayda anigu waxa waaye inaa wax iga faa'iidaan aqoontayda ama ha yaraato ama ha badnaato muhiimadayda koowaad waxa weeyaan inaad iga faa'iidaan masha allah war hadal badan hama bulshaaleyaan majaalin waatana mufadii waan jaray afar gees aan soo jaray yacni sambuus ahaan amala aan soo jaray oo u jeedaan dhexdeedii burburoonii basashii ku dhex jira wallaahi maasha allah kaala arag wax ilaahay loogu mahadiyahay marka dhammaantiin waxaan rajaynayaa kumida caafimaad qala khayr iyo wanaag iyo barwaaqo dadka shaqooyinka kaga tegayaan nabadii